الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaa badanow kusoo dhawaada barnaamijkeenii tiirarka qofka iyo qaranka qaybtiisii afraad oo had iyo jeer kala socotaan qaybaha warbaahinta ee kala duwan sida websaydyada facebooka whatsappka youtubeka goobta loo yaqaano kasteq. maanta waxa aynu kusoo qaadanaynaa maansada midnimo oo soo baxday 12 bishii 6 sanadkan aynu ku jirno 2016. maansada waxay noo sharaxaysaa qiimaha midnimadu u leedahay ummadda. balse inta aynaan maansada gudagelin waxa aynu isku dayaynaa inaynu ka jawaabno su'aashan soo socota. ma waxa aynu raadinaa midnimo qabiil mise midnimo qaran? ummaddu haddii ay weydo cid runta u sheegta waxay baylahu noqonaysaa cid been u sheegta. haddaba haddii aad maqasho midnimada reerkeenna waxa loo socdaa ee lagaa iibinayaa waa duminta qarankeenna. haddii aad maqasho horumarinta qabiilkeenna waxa loo socdaa waa saboolaynta qarankeenna. haddaad maqasho jacaylka tolkeenna waxa la tirtirayaa waa isjacaylka ummadeenna iyo qarankeenna. haddaba dhegaysto, waxba ha ku hodmin isgaadhsiintan casriga ah ee dhexdeeda laga samaystay qolalka lagu kala oodo ummadda laguna kala furfuro maalkeeda, maskaxdeeda iyo muruqeeda. xusuusnow, marka aad ku mashquusho hawl qabiil inaad dayacday hawl qaran. maanka ku hay, danta qaranka oo dayacantaa waa dantii qabiilka oo dayacantay. danta qaranka oo hagaagtaana waa dantii qabiilka oo hagaagtay. yaan akhyaali lagugu sirine laabta ku hay inaanu jirin qabiil horuu mari kara oo wax noqon kara qaran la'aantii. haddii lagugu sheekeeyo waajib qaran leeyahay baa qabiil gudan karaa oo xaslan karaa waa dhalanteed iyo laablakac riyo ah. qabiilkaaga haddaad jeceshahay ood horumar iyo badhaadhe la doonayso waa inaad ka shaqaysaa horumarka iyo isjacaylka qaranka. haddii kale been baad naftaada u sheegaysaa ee hadaalin. haddii aan u gudbo maansada iyo doodeeda waxay tidhi: bulshooy meehaa haneey, bulshooy meeraysaneey, bulshooy samamooganeey, iftiinka midhiiqiyaay, bulshooy misna mootaneey, garaadkii maxaa melmelay. maxaa maankaagii gaday mildhow baad laasintee, maxaa maxas loo tashiyo, midiidin maxaa ku baday, sawtaan lagu maagi jirin, sawtaan lagu milicsan jirin, mudnaanaha aad lahayd sawtii lama jeeran jiray. bulshooy kala maaganey, hadmaad midnimada ogaan inay milga sharafa tahay, inay maamuus dhan tahay, inay muuq fiican tahay, inay murti buuxda tahay, inay maayo tiirsan tahay, inay mooro duugla tahay, inay mina waasac tahay, inay martisooro tahay, inay culmuquunshan tahay, cadow maaxdumiye tahay, walaalnimo malaba tahay, inay maal urursan tahay, inay mood buuxa tahay, inay nool muuqda tahay, inay maskax biirsan tahay, inay muruq xooggan tahay, inaan la muquunin karin. siduu mawlabana faray macaashka adduunka iyo midhaha aakhiraba tahay, iimaanka muggiisa tahay. hadmaad maatooy ogaan muranka dhexdaada iyo midiya isku fiiqa iyo muraada ku doodka iyo anaa kaa madaxsan iyo anaa meeqaan leh iyo anaa kaa mudan abkiyo qabiilku madiixa kani inuu murugiyo lur yahay, quluubo maroorsan yahay, inuu dacar miiran yahay, mur iyo tafaraaruq yahay, magacyo bilaasha yahay, inuu magligaaga yahay, inuu mawdkaaga yahay, magana ma dareensan tahay. mawlaha i abuurayow
midkaan la labayninow mulkiga lala yeelanow rabbiga la miciinsadow adduunyadan murugada ah allow mashaqada dhex taal adaan magankaaga ahay mawlaha i abuurayow midkaan la labayninow mulkiga lala yeelanow rabbiga la miciinsadow markii xaqa badin la nacay muuquunshay xumihii bulshada markii malafsigu horkacay masruufku wadnaa hantiyey magaabada loo tartamay markii muusanowgu dhacay bilaawaha laysku miray arliga meyd lagu warwaray maagiyo kibirkii la eed la muday xuma galabsigii haddana dadku weli ma garan intay ku miciinsadaan inay kuu mahadnaqaan rabbow niyadahan melmelan adaa maarayn karee waxaannu shar miiraniyo allow naga maydh dembiga mas-uul oofiya xaqiyo mideeye allowna sii aamiin intaas baynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii tiirarka qaranka iyo qofka oo aan idiin soo jeedinayay anigoo ah maxamed kayse inta aynu mar kale barnaamijkan ku kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu